الرحيم شركة جرايد ما أنت عقب تدوشي ده وشركة جرايد لا يتضبط لها أما مال لها أما صدح الشورها واحد بدل سيدوي ما ده ما أنت شركة جرايد وحالتك دقاء الدنيا كوسو كورولي كهذا الكيده إياه كمسلمين هاني نجا وحي نجا له قطبون أركتي ده يدوح عن كقبو إن هذه أي دنيا ده إلهي عرضي سوسو دكتو ده وحويه وحلا جا إرتارت إلهي ونبا عبسيدي سوم بالله جا إرتا عيدو حسك دفاعي كرتي عيدو حسك شوتين كرتاتون لما شفتو المركز سيد على يلو الدنيا ده بانت وحي وغايب سنتي وقالوا إسلام قالوا وحي كقالوا ده إلهي أبو رتبي كقالوا ده iyadu markaa waxbay dhaqan gaar ah bay isticmaalaysaa waana waxyaabaha keenay bacada Ilaahay inay soo degto maxaa hadaba kala gudboon iyagu waa kuwa geeri ma ogola iyagu dhimasho ma ogola inagu se dad islaam baynu nahay dad dalalka islaamka ahi in dhimasho jirto waayo magaaladooyinkeena maalin walba konto waxa laga qaadaa magaalo walba inta soo meed baa laga qaadaa marka loo fiirinay maxaynu wax uga difaaci weyn waxa weeye haday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa Ilaahay u soo diray de inaga dadku waa dhiman inagu saasaynu dhimanayna waana ogolayn laakiin amaraan maqlayay ka soo baxay gudigii hawshan loo xilsaaro la leeyahay masaajidada hal la xidho diiniyan anigu diintu waxay ka qabto de anigu garan may laakiin war hadaanay xidhnayn kuwii fusuqa lagu sameeyay guriyada lagu sameeyay awood u lahayn aad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada la galiyay furan yihiin intii masaajidka ku jirtayna aad tiri ka soo yaac kuwana aanad xidhi karin marka ma dadkii intii Ilaahay ba inoogu dambi naxariisanayeen aad ka tiri soo xidha masaajidka ma soo kuwan furan ma aha marka ma kaniisada isugu kaalaya dadku waxa weeye anigu waxaan oran lahaa daari sida tan qabin hadaan dawladdu awood u lahayn inay xidho dhulka fusuqa iyo guryaha lagu sameeyo waxaan hadaan iyadu xakamayn karin ee masaajidka quraya xakamayn baan anigu oran lahaa kuwaas oo furnaadeen kaana hal la soo xidho kaas waa kii lagaga eeran lahaa waxa xun mid labaad dadka maanta wadanka jooga xitaa bandow maalin uma taagayo sida kale hayso ilaaliyo dadku sida shimbiraha subaxii soo dareeran 3 meelood oo boqolkiiba 3 meelood sida shimbiraha waxaan leeyahay war dawladda hadaanay awood u lahayn meelihii المرفشيدي الماليه البابدي كله هدان حلي بكرين مساجد كي هلا حلو أنا قم قبل إلي ده وماشي لقى إيران الله أنت هير بابا إلهي نوجد من دافع مساجد كي وشفته ما قالت بروح حكى عليه بالليل لين بال لقى هلا خير بروح صويا على واحد هذا لين كان لقى هلي بالسوق إيجل هذا واحد لقى عرال لها دولة كانوا ويدو واركن نقطة markaas la ninkii waa laga waayay markaas waxaan isla soo sawiraynaa ninka laga waayay warbal dadkeena waa yahay hataarad wax xakamayn karayso dawladuna de wixii nidaamkii wixii ay wax ka qaban karayso talaabadeeda ha qaado wixii nadaafad laga hortagayo wixii kale ay qaban karayso dad baan maqlayay miyiga ha loo baxo oo miyiga ma gurigaaga aad ka aragtay dadka boqolkiiba 3 meelood oo 2 meelood waqti bay ku sugan yihiin hadaad adigu lacag miyiga ugu rarto hayso horta ma eegtay kuwa kan marka leedahay miyaha loo war sida kale dadka nidaamkiisa ha la qabto dawladdu wixii ay qaban karayso ha qabato dadku hays ilaaliyo nadaafadiisa ha ilaashado in hadaba la dadaalo oo nadaafada lagu dadaalo oo dadku kala fogfogaado oo sida loo hogaansamo wacyigelinta wasaaradda ay caafimaadku bixinayo culimadu sida ay qabto in loo hogaansamo waa fiican tahay laakiin meelaha wanaagsan ee ay Ilaahay ugu dhawaanayno ee xuskiisa ugu dhawaanayno haddaan la wada xakamayn karin meelaha kale iska furan yihiin ma wanaagsaneen meelaha furan Ilaahayna waa inoogu caroonaya mid labaad ma xanuun baynu ka baqnaayo Ilaahay baynu ka biqweynaa oo inoogu faral yeelay in masaajidada lagu tukado diinta marka ma xanuun baynu ka baqnaa maya waxa weeye ka biqmeynaa waxaynu inagu Ilaahay baynu ka hoosgeleynaa dadka islaamka oo meel kasta ay joogtaan mucjisa Ilaahay iyo haday soo degaan ka hoosgale Ilaahay isu dhiiba cibaadadiinu haday idin ka xuntahay sugta hagaajista dunidii waxa soo degay cala Allah soo degtay dunidii maraysa islaamka waxa looga baahan yahay xagga Ilaahay u cararaan gaalo iyadu ma oga awalba ma ogeen Ilaahay iyo arrimihiisa toona waa taacay qaylinaysa inagu aanu carar xagga Ilaahay sidaas aan lagu oran lahaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.